kulan wacan oo wanaagsan habeen wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan sharaf iyo karaamo soo dhowaada madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa amray in askar hubeysan iyo boqolaal askari oo dagaalyahano ah la geeyo xuduudda Djibouti iyo sidoo kale Soomaaliland iyadoo Djibouti arrinkaasi ay si weyn uga carootay sida ay tilmaamayaan ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo warbaahinta gudaha ah waxaa laga cabsi qabaa in dagaalo foolka fool ah markii ugu horeysay ay dhex maraan ciidanka Djibouti iyo sidoo kale kuwa Soomaaliland wargeys ka soo baxa magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa shalay tabiyay warbixin la xiriirta in 1000 askari oo hubeysan oo ciidamada military ah lagu daabulayo xuduudda wargeysku wuxuu sheegay in ay la yaab iyo amaka ku noqotay Soomaaliland in Djibouti ay qorsheynayso inay maamul ka dhisto xuduudda laakiin Djibouti ayaa arrinkaasi beenisay oo sheegtay isku day walba oo la doonayo in lagu carqaladeeyo xasiloonida gobolka inay dhaawici doonto xiriirka labada wadan in Cabdiraxmaan Cirro oo hadda amar inta leeg uu bixiyo wax sahlan ma aha waxayna dad badan u arkaan inay tahay xataa caqabad inay xataa jibinayso heshiis hore ay u wada gaareen beelaha reer Sheekh Isxaaq iyo sidoo kale iyo Soomaaliland iyo beesha Ciise ee Djibouti taasi oo dhigaysay in xasiloonida iyo nabadda laga wada shaqeeyo laakiin hadda sidii hadda wax u muuqdaan waxaad moodaa in wax badan ay isbedeleen xogta la helaya waxay tilmaamaysaa in 48 saac la soo dhaafay dhaqdhaqaaqa ka socda gobolka uu sare maray xogna waxay sheegaysaa in tuulada Xariirad iyo deegaanada hoos yimaada ay ka socdaan soo qabqabasho lagu sameynayo rag dhawaan isku sheegay inay yihiin odayaal dhaqameed maamul ah oo ka madax bannaan maamulka Soomaaliland degmada Xariirad ee gobolka Salal waxaa ka socota qabanqaabada xafladda caleemasaarka maamul cusub oo dhawaan beelaha Gudubirsi ay ku doorteen degmada Xariirad munaasabadan ayaa la qorsheeyay in 30 bisha 7 2026 ay ka qabsoomto magaalada Xariirad taas oo iskugu imaan doonaan beelaha Gudubirsi sida ay sheegeen maamulka cusub ee Xariirad shacabka beelaha Gudubirsi ee degmada Xariirad ayaa marar badan xukuumadda ugu baaqay in ay la shaqeeyaan maamulka cusub ee degmada Xariirad maadaama ay ka gaabiyeen maamulkii dawladdu ay soo magacowday degmadaasi iyadoo xaaladdu halka ay jirto Soomaaliland waxay sheegtay in aysan halkaasi maamul laga dhisin laakiin la rabo min qashqashaado iyo dhibaatooyin hor leh halkaasi laga abaabulo iyaduna aysan aqbali doonin xogtan helaya haddaba waxay tilmaamaysaa in ay u badan tahay in dhowrka saac ee soo aadan laga yaabo in isbeddello ay ka dhacaan gobolka isla markaana Xariirad dagaal ay ka dhacaan iyadoo hadda deegaanada la leeyahay waa la geenayaa ciidamada ay Xariirad ku jirto taasi oo ay dad badan dhowr mar oo kala duwan ay sheegeen in laga fiirsado isla markaana aysan sinaba macquul u ahayn in Xariirad iyo deegaanada hoos yimaada ciidamo lagu arko Soomaaliland dhowr mar waxay sheegtay inay qaadayso tallaabooyin aan la mahdin haddii Djibouti ay isku daydo taageerida maleeshiyaadkeeda halkaasi ku sugan Xariirad maamulka laga dhisay waxaa la rabaa marka in odayaashii dhaqanka beesha Gudubirsi oo dhan halka ay iskugu tagaan Soomaaliland waxay ka cararaysaa waa intaas oo waxay leedahay maamul aan hoos imaanayn dawladda Soomaaliland halkaasi lagama dhisi karo odayaashii halka tagana dabcan waxay qaadayaan tallaabooyin adag oo xaaladda uga sii daraya waxaana ragga aan la hadalnay ay dhowr mar oo kala duwan warbaahinta u sheegeen in ay iyagu og yihiin xiisadda halka ka jirta isla markaana ay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah wararka iskhilaafsan ayaa waxay sidoo kale tilmaamayaan in 48 saac la soo dhaafay si weyn loo dareemay dhaqdhaqaaqyada gobolka ka socda waxaana xogta la helaya ay tilmaamaysaa in Soomaaliland ay marar kala duwan si cad u sheegtay in maamul laga dhiso Xariirad ama maamul laga dhiso meel kale uusan xal u keeni doonin in dadkaasi wada dhashay ee walaaltinimada ka shaqeeyaan waliba ciisaha ku darso oo ciisuhu xataa way diidan yihiin sida hadda wax ku socdaan waxay leeyihiin sinaba waxaan anaga nooma galaan sinaba macquul uma ahan sinaba suuragal uma ahan way diidan yihiin meel fog bayna ka taagan yihiin sida hadda wax u socdaan waxaana odayaasha dhaqanka beesha Gudubirsi dhowr mar oo kala duwan looga digay inay ficladana sii socdaan dhaawicina doonaan wada dhalashada iyo walaaltinimada Cabdiraxmaan Cirro ayaa toddobaadyo ka hor sidaas oo kale mar uu la hadlayay odayaal dhaqan beesha Gudubirsi ah wuxuu u sheegay in Xariirad maamul laga dhisayo ama Djibouti xuduudeeda laga dhisayo og yihiin falsafada ka dhalan karta oo uu ku tilmaamay inay tahay
wax aan la aqbali doonin. Wuxuu sheegay inay tallaabooyin dheeraad ah qaadi doonaan haddii la isku dayo ama la carqaladeeyo xasiloonida iyo nabadda ka jirta gobolka, oo ay dad badan aaminsan yihiin in ay caqabadda ugu weyn hadda ay jirta ay tahay sidii xal looga gaari lahaa dhibaatada halkaasi ka taagan.